wafdiga wasiirada iyo madaxda xisbiga kulmiye ee maalmahanba ku sugnaa caasimadda waddanka Finland ee Helsinki ayaa waxaa maanta hadhimo sharafeed u samaysay aqalkeeda ay ka degan tahay magaalada Helsinki ganacsatada Aamina Xuseen Xasan Aamina Faasa. wafdigan oo ugu horeyn ay soo dhaweysay Aamina Faasa iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee laanta Finland waxaa hadaladoodii ka mid ah. runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay, waa hadhimo wanaagsan bay ahayd, shaqo wanaagsan baan la qabtay intii aan joognay. xisbiga jaaliyadda hablaha kulli dhammaan la qabteen, hawsheedii way soo gabagabo waana baxayna haddii aad noo barito aad baan idinku mahadnaqaynaa annagoo qalbigeenu fiican yahay, aad iyo aad u niyadsan adigana aanay aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. maanta waxaan faraxsanahay inaan guriga Aamina Xuseen Xasan hadhimo sharafeed aad iyo aad u qiimo badan runtii ay noogu samaysay qiimo iyo milga gaar ay noo tahay guud ahaan reer Finland. aad baan uga mahadcelinaynaa sida isku duubniday iyo ay noo soo dhaweeyeen noo qaabileen hawlahan u soconayna runtii si wanaagsan bay noogu dhamaadeen. mar labaad iyo mar saddexaad Aamina iyo inta la shaqeynaysa waan uga mahadcelinayaa hadhimo sharafeedkan ama qadadan qiimaha leh. aad iyo aad baa mahadsantiin. waxaan joognaa Helsinki Finland, casuumadii hore u soo dhacay waxa ka dhici jiray ma hool ama hotel, tan waxay kaga duwan tahay waa gurigii khaaska ahaa mandarka quruxda badan leh weeyaan. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran jazaa Aamina, sharaf inoo tahay dhamaantayo anagoo ku hadlaynaa afka wafdigaba waa kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo tiimka hablaha sharafta leh kula shaqeeyay iyo intii soo qaabisay. intii aanu joognay runtii waa ku diirsanay jaaliyad iyo community isku xidhan oo dadaalaysa ayaanu runtii wax ka aragnay. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madaxdii ka soo qayb gashay hadhimo sharafeedkan waxaanay u mahadnaqeen ganacsatada Aamina Faasa waxaana yidhaahdeen marka koowaad waxaan u mahad celinayaa marwo Aamina Xuseen Xasan Aamina Malyoon oo qadadan sharafta badan inagu maamuustay anigoo ku hadlaya afka xisbiga kulmiye Finland ka taageerayaasha ka guddiga fulinta iyo ka gudoomiyahaanba. waxaan leeyahay Aamina aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida qiimaha badan ee wafdigii noogu soo dhaweysay. aad iyo aad baanu kaga mahad celinaynaa. sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan ku kulanno guriga Aamina oo ah haweenka ugu mudnaanta badan leh dalka Finland, hawlkarnimo daacad maasha Allah. maantana yani waxay sharaf weyn noo ah in meeshan bartan nagu wada casuunto annaga dhammaanteen. dhammaan waxaan u mahad celinayaa sharafta qiimaha iyo qaayaha badan ee maanta la soo booqatay. runtii amba waxa sida igu farxeen baan ugu faraxsanahay waayo gurigayga hore looma soo martiisaan culus ma soo booqan. marka dhammaantiin aad baad mahadsantihiin, waxaan wadiir rajeynaya iyo dhammaanta iraaqiinta qiimaha badan iyaguna kambeynka ku jira. wafdigan ayaa maanta soo gabagabeeyay hawlihii shaqo ee ay waddanka Finland u yimaadeen waxaana isla maanta ka soo ambabixin doonaan madaarka Helsinki Airport iyagoo dhinaca Somaliland u sii jeeda kuna beegan maalmaha soo socda. Aadan Yuusuf Cismaan, Home Cable TV, Finland.